بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنو وناسنا بانبا خيارتها وذا نقلا حريداي meel ka soo daafa dunida ka joogtaan halkani waa xarunta guud ee telefishinka qaranka Soomaaliland oo ku leeyahay magaalada Hargeysa. waxa la soo gaaray amiintii aan idin soo gudbin jirnay war wixii caalamka naga soo gaaray. warka waxa uu diyaar u la socodsiin doona anigoo Axmed Saki Daahir Xasan. qodobada wararkayga ugu door korona waxa kamid ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa sheegay inuu ku marti qaadayo dalka wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya Master Nicholas Kay. gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay sarifka lacagaha qalaad iyo waliba qaab socodka hawlaha banka dhexe ee Soomaaliland. taliyaha ciidanka booliska ee Soomaaliland ayaa ka hadlay hawlgallada ciidamada boolisku ay fuliyeen. maariyaha telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa deeq lacageed gaarsiiyay cisbitaalka dhimirka ee magaalada Boorama. akhyaarta qiimaha badan ee hawada nagala xidhiidha intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland mudane Maxamed Biix Yunis ayaa sheegay inuu dalka ku marti qaadayo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya Master Nicholas Kay. sida uu faahfaahinta warkaasi noogu hayo wariyahayga Xamse Cali. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biix Yunis waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland martiqaad u falisay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan siyaasadda Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador Nicholas Kay. shirkada ku qabtay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland xafiiskiisa magaalada Hargeysa waxa uu ku sheegay in xiriirka imika u dhaxeeya Soomaaliland iyo ergeyga qaramada midoobay Nicholas Kay uu meel fiican maray, isagoo sheegay in Hargeysa ay kaga wada hadli doonaan xiriirka Soomaaliland iyo qaramada midoobay. waxa uu yiri Nicholas Kay waxa weeye SRG waxaan afkiisa lagu raado special representative of the Secretary General halka marbu yimid. waxaan kula kulmay 12 June ayaan la kula kulmay. waan wada hadalay waan soo casuunay. waxaan filaynay maada bisha August ee soo socota 18 ilaa 19 martiqaad baan u fidinay. Nicholas Kay saa la socotaan wuxuu qaabilsan yahay UN-ka hay'adaha halkan jooga oo dhamisay hoos yimaadaan ama haato humanitarian ama development haato ama haato siyaasad. arrimahaanu ka hadlayna ma aha arrimaha siyaasad ku lug leh. laba deputy buu leeyahay ninka la yiraahdo Philip Lazzarini oo qaabilsan humanitarian development-ka marka xafiisadan FAO-da iyo UNICEF iyo UNHCR iyo World Food Program oo agencies ku dhimay hoos yimaadaan iyo gabar qaabilsan Algerian oo Fatiya la yiraahdo oo iyana deputy SRG political-ka. waxyaabaha badan ay UN ku qabtaan waxa kamid ah inay ka caawiyaan dawladaha arrimo fara badan oo siyaasadda ku lug lahayn. arrimahan doonaan kala hadla waxa ku lug leeyihiin arrimo horumar ah, arrimo genderka ku lug leh, tababaro booliska la siiyo, askarta jeelka la siiyo. marka arrimo khuseeya oo xaq u leenahay haddaan nahay Soomaaliland iyo dawladeeda ayaan doonayna wax naga qabtaan. marka sidaa uga baan u soo casuunay. gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyay sarifka lacagaha qalaad iyo waliba qaab socodka hawlaha banka dhexe ee Soomaaliland. markale warkaasi faahfaahintiisa waxa inoo haya wariyahayga Xamse Cali Bulbul. gudoomiyaha banka Soomaaliland Cabdidirir Cabdi ayaa wareysi uu siiyay TV-ga qaranka Soomaaliland waxa uu ku sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay soo dhaweynayso tallaabada shilin Soomaaliland lagu bedelayo adeega saad. isagoo ka hadlaya waxa uu yiri saadka iminka indooran wada hadlaynay sidii ay ugu bedeli lahaayeen saadkan doolarka Soomaaliland shilling. alxamdulillah meel wanaagsan bay iminka noo maraysaa. guulla waanu ka gaarno waanu islaaf garanay arrinta. waxaanu rajaynaynaa waqti aan fogeyn inay furaan xisaabo saad koodu uu yahay Soomaaliland shilling. markaasi weyn waxaanu ugu rajaynahay inay dhaqso taasoo imanayso. baanka la furayo commercial banks gaana waanu ka wada hadalay oo waxaan diwaana sameeysan $1 ah sameeynin way sameyn karaan $1 ay waa laga baqaa inay wada karaan laakiin inaan u sheegnay muhiim inay tahay legal tenderka wadanka inuu Soomaali shillinka yahay
gudoomiyaha banka Soomaaliland sidoo kale waxa uu sheegay in dhawaan la furi doono commercial banki ama baanankii caalamiga ah sida kuwa islaamiga isagoo faahfaahin ka bixinaya gudoomiyuhu waxa uu yiri commercial banks shuruucdiisi way dhamaatay islaamiga weli waxa taagan commercial bankski kuwa aan conventional ama ajnabiga ee reer galbeed shuruucdeedii weli way taagan tahay baarlamaankuna weli ma baas gareyn marka arrimihiisii commercial bank tujaarigii waa iska dhowdhow yihiin waxaan rajaynaynaa taa iminka ay weli haystaan baarlamaankuna in dhaqso ay u sii dayn doonaan oo maogtahay loo approve gareyn karo waxaanu kaloo rajaynaynaa waqti aan fogeyn marka ramadaantu iminka inaga baxdo wixii ka dambeeya inaanu furayno baanankii islaamiga ahaa gudoomiyaha banka Soomaaliland sidoo kale waxa uu beeniyay in lacag cusub oo Soomaaliland lagu soo daabacay magaalada Nairobi isagoo sheegay in warkaas yahay mid been abuura waxaanu yiri warkaas war aan raad iyo asal toon aan lahayn oo iska hayn xumaatashil uun weeye wax ka jiraan ma jiraan warka taliyaha guud ee ciidamada booliska ee Soomaaliland sareeya guuta Cabdilaahi Fadal Iimaan ayaa isaguna waxa uu ka hadlay howlgalo ballaadhan oo ciidamada booliska Soomaaliland ay fuliyeen Cabdiraxmaan Muuse ayaa faahfaahinta warkaasi inooga diyaariyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland oo xafiiskiisa ugu waramayay warfidiyeenno ka socda TV-ga qaranka ayaa sheegay in xaaladda guud ee dalku ay aad u wanaagsan tahay gobolada iyo degmooyinka dalkana ay ka bilaabeen howlgallo kor loogu qaadayo ammaanka u diyaar garowga munaasabadda Ciid al-Fidriga awgeed taliyuhu waxa uu cadeeyay in howlgalladan socday ay ku soo qabteen 120 dhalinyaro oo ku eedeysan falalka tuugada iyo dhalinyarada kooxaha habeenkii isku kaxaysata sharcigana la horgeyn doono marka baaritaanka kiiskoodu uu dhamaado ammaan uga soo jiray bulshada reer Soomaaliland oo uga mahad celinaya wax kasta oo dareen ka qabaan u soo gudbiya ciidanka booliska iyo hay'adaha amniga waxay leeyihiin ciidanka booliska bulshada reer Soomaaliland gacan saar wanaagsan taas oo qof kasta oo dareen ka galo oo ay arkaan inuu nabadgelyo wax u dhimayo ay markaaba halka ugu dhow soo sheegaan aad iyo aad baan uga mahad celinayaa geesta kale taliyuhu maruu ka hadlayay zaxmadda dhinaca gaadiidka waxa uu ciidamada laanta nabadgelyada wadooyinka ku amray in ay sharciga la tiigsadaan ciddii xadgudub ku samaysan nidaamka wada marista gaadiidleydana waxa uu ka codsaday in ay muddadaasi ilaaliyaan nidaamkaasi waxaan fursaddan kaloon inooga faa'iideysanayaa maadaama ciid soo dhowdahay oo ay saxmadda gaadiidku badan tahay waxaan halkan gaadiidleyda uga soo jeedinayaa inay nidaamka sharciga wada marista ilaaliyaan waxaad arkaysaa gaari leynkii ku jiro ka baxaya oo kuwii kale haad kale soo haystay ka hortagaya wadooyinkeennuna way iska yaryaryihiin waxaan halkan gaadiidleyda uga digayaa in iyo darawaliinta gaadiidka wadda inay ilaaliyaan nidaamka wada marista isla markaana in ay la shaqeeyaan ciidanka nabadgelyada wadooyinka oo ay sharciga raacaan halkana waxaan ka farayaa ciidanka nabadgelyada cid kasta oo si khaldan uga xadgudubta xeerka nabadgelyada wadooyinka in tallaabo ku habboon laga qaado oo sharciga la mariyo mariyaha guud ee telefishinka qaranka Soomaaliland mudane Khadar Xasan Cali Gaas ayaa isaguna deeq lacageed gaarsiiyay isbitaalka dhimirka ee magaalada Boorama Amran Caafi ayaa warkan nooga soo dirtay magaaladaasi maareeyaha telefishinka qaranka Soomaaliland Khadar Xasan Cali Gaas maanta howlo shaqo ku yimid magaalada Boorama ayaa deeq lacageed waxa uu gaarsiiyay isbitaalka dhimirka magaalada Boorama iyadoo deeqdani lacageed loogu talagalay in dadka ku jira isbitaalka dhimirka maalinta ciida looga farxiyo deeqdani waxa ay ka timid barnaamijka tabarucaadka telefishinka qaranka studio-hiisa dalka Sweden ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay suduwaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta gobolka Awdal Abubakar Xasan Caafi ayaa waxa uu sheegay waxa maanta isbitaalkan dhimirka ee magaalada Boorama oo ay ku jiraan haween iyo rag xanuunsanaya ayaa waxa maanta deeq lacageed soo gaarsiiyay oo loogu talagalay in maalinta ciida qada looga dhigo maareeyaha TV-ga qaranka ee Soomaaliland Khadar Xasan Cali Gaas maareeyaha telefishinka qaranka Soomaaliland Khadar Xasan Cali Gaas oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka waramay deeqdani waxa ay tahay halka ay ka timid waxaan jecelahay inaan ku wareejiyo deeq lacageed oo qayb ka mid ah telefishinka qaranka uu ururiyay barnaamijka tabarucaadka studio-ga Sweden ku yaala uu sameeyo
lacagtaas waxaan ugu talagalnay in maalinta ay ciidda ay siistaan qado loogu sameeyo dadka maskaxda ama dhimirka qaba waxaan rajaynaynaa in ilaahay miisaanka xasanaadka kor ugu qaado dadkii kusoo tabarucay waxaan jecelnahay inaan halkan ka xaqiijino inaan lacagtii ku wareejinay daktarka ilaahay waxaan ku rajaynaynaa inuu xasanaad badan ugu bedelo dadkii lacagtaas $100 waxaan ugu talagalnay in maalintaa qado loo siiyey ciidda ay la farxaan dadka kale dadka xanuunsanaya ee maskaxda wax ka qaba ilaahayna waxaan u rajaynaynaa inuu caafimaad siiyo dadka waxaan ku dhiirigelinaynaa inay dadkan aan la iloobin oo ay wixii ay heli karaan u soo quraan aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaahay khayr ayna siiyaan leenahay annaguna waan gaarsiinaynaa wixii aad soo gaarsiisay maamulaha isbitaalka dhimirka magaalada Boorama Dr. Cabdiraxmaan Gurguurte ayaa waxa uu ka mahadnaqay deeqdan in la soo gaarsiiyay waxaan kala wareegnay $600 oo loogu talagalay in lagu adeego gaar ahaan qaybta dumarka iyo qaybta ragga ee isbitaalka dhimirka $600 ka dhantahay waxaan idin leenahay dhammaan cidii laga soo qaaday cidii laga soo wareegay jazakumullahu khayr si gaar ah ayaan aad kaga mahadnaqaynaa booqashadaad noogu timid hadiidaad noo keentay Soomaaliya waa horumar agaasimahana aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa jazakumullahu khayr si kastaba ahaatee deeqdani waxay ka timid barnaamijka tabarucaadka telefishanka qaranka istuudiyiisa dalka Sweden ayaa waxa loogu talagalay gobolada Togdheer iyo Awdal waxaana xusid mudan in deeqdani meelihii loogu talagalay ay gaadhay amran caafi TV-ga qaranka agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka ee Soomaaliland ayaa isaguna soo bandhigay mashaariic kala duwan ee 6 bilood ee u dambeeyay ay ka fuliyeen wasaaradda qorsheynta qaranka ee Soomaaliland Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qula ayaa faafahinta warkaasi noo haya agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirashiid Axmed Guuleed ayaa ka warbixiyay xiriirka kala duwan ee ay wadaagaan hay'adaha caalamiga ee kala duwan ee ka howlgala waddanka iyo sidoo kale hay'adaha deeq bixiyaasha ee mashruuca tirakoobka oo iska kaashanayaan wasaaradda qorsheynta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda maaliyaddu dib u habaynta hay'adaha madaxa bannaan iyo kuwa dawliga ah ee ka howlgala waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirashiid Axmed Guuleed oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa warbixinaha hay'adaha dawliga ah iyo hay'adaha dawliga intaba warshadaha biyaha warshadaha kale waxa soo ku jira waxa ku jira dawladaha hoose waxa ku jira wasaaradaha waxa ku jira hay'adaha madaxa bannaan cid kasta oo macluumaadkeeda loo baahan yahay oo ku jira sanadka dib u hayn lagu sameeyo marka buukaas marka waxa weeye wada taabacay ku mid yahay waxqabadka 6 bilood la qabtay ku mid yahay waxa kale oo la qabtay 6 bilood gudahood waxa la qabtay shirkii lagu qabtay ambassador ee hay'adaha deeqaha bixiya la isugu yeeray waxa loo sameeyay dabagal in la dabagalo iyagoo ay iskaashanayaan wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta iskaashanayaan team ama koox loo wada diray soo ogaanaysa ama dabagal ku samaysay wixii mashaariic ay dawladdu fulisay loo dhamaystiray iyagana waa soo dhamaystiray dhammaantood baa soo dhamaystiray 6 bilood oo dambeeyay waxa kale oo dib loo daabacay ururka qorshaha qaranka ee ahaa 2012 oo ka dhammaaday isla markaa cid kasta u baahatana aanu siino agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa isaguna waxa uu faahfaahin ka bixiyay halka ay u marayso hawlihii diiwaangelinta kaarka aqoonsiga muwaadiniinta kala duwan ee Soomaaliland Jaafar Axmed Bade ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cabdisamed Cumar Maal oo ay weheliyaan xubno kamid ah guddigii farsamada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu magacaabay howlaha diiwaangelinta kaarka aqoonsiga ee muwaadiniinta ayaa sheegay in hawshaasi ay marayso meel aad u fiican isla markaana hawshii ugu ballaarnayd ay ahayd kala saaridda shirkadii uu tartamayay qandaraaska qalabka farsamo ee loo isticmaalayo diiwaangelinta oo ay ku guuleysatay shirkad wadani ah oo ka soo dhex baxday 43 shirkadood oo isugu jira ajnabi iyo wadaniyiin agaasimaha guud waxa uu sheegay in kaarkani uu qayb libaax la ka qaadan doono horumarka ballaaran ee dalka ka socda isla markaasina soo saarayo xogta dhabta ah ee muwaadinku uu leeyahay agaasimaha arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi anoo ka mid ahayd markaa guddidii uu magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isugu jirtay laba
guddi oo qaybina ay tahay steering committee ama qaybta managementiga ah iyo qaybta fulinta oo technical committee-ga ahayd aan isku jirnay diiwaangelinta aan wadnay waxay ahayd mid ku salaysan bixinta kaarka aqoonsiga muwaadinimo macnaha marka la leeyahay kaarka aqoonsiga muwaadinimo haddaba dawladaha hoose waxay bixiyaan waxa la yiraahdo taysar municipale kana wadna faa'iido muxuu leeyahay muxuu kaga duwan yahay wixii hore waa su'aal muhiima macnaha diiwaangelin kaarkan aan bixinayna waa mid sida RBF-kii aan anagu website-ka gelinay ku xaysiinay shirkadaha ku soo tartamaya inay noocaas oo kale noo keenaan waa mid leh ujeeddo badan ah faa'iidooyin fara badan leh ugu dambeyn agaasimuhu waxa uu sheegay in maalintii guddigan la magacaabay ilaa iyo maanta in aanay hal mar ka fadhiisan hawshaasi isla markaasina ay rajaynayaan in bisha Sebtembar ee soo socota ay si rasmi ah u bilaabato diiwaangelinta muwaadiniintu maareeyaha xafiiska samafalka ayaa iyaduna deeq raashin waxa ay gaarsiisay dadka danyarta ee ku nool xaafadaha Daami iyo Biibsiga xafiiska samafalka madaxtooyada Soomaaliland oo ku guda jira waajibaadkiisa shaqo gaar ahaan uu gargaaridda oo samafalida ka warhaynta iyo waliba ka farxinta dadka jilicsan ee bahan ayaa bariis iyo saliid ugu deeqay dadka danyarta ee ku kala nool xaafadaha Daami iyo Biibsiga kaasi ay bixiyeen raashinkaasi hay'adda Muslim Aid hadal kooban oo madasha lagu guddoonsiinay mucaawinooyinkaasi maareeyaha xafiiska samafalka madaxtooyada Soomaaliland Marwa Aamina Maxamuud ay ka tiri ayaa sheegtay halkan waa 100 qoys baa maanta wax lagu siinayaa waana xaafadda Daami ee ka tirsan xaafadda Gacan Libaax waxaan Ilaahay uga baryaynaa insha Allah dadka danyarta ah in Ilaahay faqriga ka saaro roob khayr qaban Ilaahay noo shubo haddaan xafiiska samafalka madaxtooyada nahayna wuxuu madaxweynuhu u magacaabay xafiiska in uu danyarta taakulada gaarsiiyo ama ay dawladda iyo danyartu isa soo gaaraan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan uga mahadnaqaynaa sida uu danyartiisa u og yahay isagii marwadiisaba waxaan halkan xaafadan aanu joogno waa xaafadda Axmed Dhagax gaar ahaan waxa way xaafadda la yiraahdo Biibsiga oo aanu 100 qoys ugu qaybinayno raashinka aad arkaysaan maanta oo ah yaamihii u dambeeyay Ciid al-Fitrida ilaahay meeshay ka soo saareen intii keentayba hay'adda Muslim Aid iyo intii kala soo shaqaysayba Sidiiq Maxamuud Gayro ku hadlaya magaca Muslimin ayaa sheegay in barnaamijkan uu yahay mid ay kor ugu qaadayso hay'adooda nolosha dadka jilicsan ee waxba aysan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan la taliyaa madaxweynaha ee dadka la haybsooco iyo Liibaan oo iyaguna gudoomiyay raashinkaasi ayaa uga mahad celiyay cid kasta oo kaalin ku lahayd deeqdaasi dadka la gudoonsiiyay bariiska iyo saliidda ayaa iyaguna ka mahad celiyay deeqdaasi la soo gaarsiiyay iyadoo ay ku soo beegmayso 10ka dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ayaa maalintii labaad wada hawlgallo lagu banlaynayo qaar ka mid ah jidadka dhexmara caasimadda Hargeysa faahfaahinta warkaasi waxa inoo haya wariyahayga Xamse Qurbaani howlgalkan ayaa ah maalintii labaad ee golaha deegaanka Hargeysa ay ka fuliyeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Gacan Libaax iyo 26 Juun howlgalkan maanta oo uu horkacayay maayar ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi Cagaweyne oo ay wehelinayeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo saraakiisha dawladda hoose iyaga oo dhammaantood ka waramay faa'iidada ay u yeelan doonto bulshada banaynta wadooyinkan waxaan ka soo bilownay fayskii labaad wadadii hawlaag ee cabaye wixii qaladaada ee hore ee wadada hareeraheeda laga dhisay ee guryahaana si wanaagsan baan u soo nadiifinay alxamdulillaah rabbil caalamiin hawlgalku mid halkan oo kaliya ku eeg maaha waa mid daafaha caasimadda oo dhan gaari doono dhinac walbana u socon doona dadweynaha degan labada degmo ee ay marayso wadadani ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hawlgalkan oo halkudhagiisu yahay hawlgalkii hilaaca waa hilaac weeye hawlgalkan waa hawlgalkii hilaaca hawlgalkan sida hilaaca ayuu maro waxaan soo maray laba degmo waa fayskii labaad maanta waxaa jira qolooyinkan leydhka iyo qolooyinkan isgaadhsiinta ee telesom ama somtel dhammaan shirkadaha isgaadhsiinta inay ka waantoobaan dhaqankan ay ku dhaqmayaan ee meeshay doonaan ay iska dhigayaan birta ay ka taageen xadkooda inay u meeldayaan baan soo jeedinayaa waa fayskii labaad ee wadadan 3 degmo isku wada xidhaysay oo ah wada weyn
oo main roadka Hargeysa aanu u talagalnay inay traffic jamka bartanka magaalada maraya ay kala jabiso waxaanu ka soo bilownay akademiyada waa ogeydeen koodbuur baan ka soo bilownay Jumbay baa hadda soo martay maanta Gacanlibaax bay ku dhex jirtaa waxaanu wadnaa wadada meel qura kamay weecan meel qurana ka istaagina mayso hawshaana waxaan ku ballan qaadanaynaa inaan hariya habeen doonaan ximna sanadii la hayraada أحمد محمد فيلنوا oo kamida siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa maanta fariin adag u diray xubno kamida qurbajooga Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Mareykanka kuwaas oo ku dhawaaqay in ay furanayaan urur siyaasadeed faafaynta warkaas waxay noo hayay wariyahayga Jaafar Axmed Bade siyaasi Axmed Maxamed Filanwa oo ahaa wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Rayaale ayaa ku tilmaamay wax lala yaabo oo ka baxsan nidaamka iyo shuruucda Soomaaliland xubno isku urursaday dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis oo ku dhawaaqay in ay Soomaaliland ka furayaan urur siyaasadeed kamid ah ururada siyaasiga waxaanu aflagaada iyo gaf ku tilmaamay eedaha aan salka yaraadka toona lahayn ay u jeediyeen xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo tilmaamay in ay tahay xukuumaddii ugu waxqabadka badneed ee soo martay Soomaaliland isla markaasina waxqabadka ballaaran iyo horumarka dalka ka socda uu yahay mid aan maanta indhaha laga qarsan karin waxaan leeyahay waxa tihiin rag aan aqoon lahayn aqoon la'aan guuraya oo aan garanaynin sharciyada u taala qarankan ee lagu dhaqmo maxay ku yimaadaan urur muxuu ku yimaadaa xisbi muxuu ku yimaadaa ururadu waxay ku yimaadaan sharci bay ku yimaadaan golayaasha qaranka digreetada madaxweynaha hawl sharci ah oo la isla wada qaatay ayay ururadu ku yimaadaan xisbina waxbay ku tagaan marka wax aan sharci lahayn oo Soomaaliland ay leedahay baanu mataqaana kaga dhawaaqaynaa waxa oo waliba aad mataqaana wadanka sidaad u fadeexadayseen eed caalamka ugu baahiseen oo waxbaan u qabanaynaa haddana aad leedihiin waa arrin anigu aan u arkay jariimad dambi ah oo aad ka gasheen qaranka Soomaaliland haddaad u dhalateen dambi ba mataqaana kaga jirtaan waxa weeye Soomaaliland horay u martay ma taalo annagu cadaalad xumo dhaqaale xumo nabadgelyo xumo caafimaad xumo waxaan aad akhriyeysaan Soomaaliland horay uga martay caalamkuna markhaatu ka yahay jimciyadda khayriga Raxma ayaa deeq raashina u fidisay dugsiyada caruurta ee baahiyaha gaarka ee magaalada Hargeysa faafaynta warkaas waxay noo hayay wariyahayga Xasan Faarax Qamaan jimciyadda Raxma al-Khayriya ayaa deeq raashina ugu deeqday dugsiga caruurta dhimirka wax ka qabtay Hargeysa Special Needs ee magaalada Hargeysa deeqdan raashinka oo ay ugu deeqday jimciyadda Raxma al-Khayriya ayaa waxa ka gudoomiyaha dugsiga caruurta dhimirka wax ka qabtay magaalada Hargeysa Khadra Umar Xasan caruurta yar yar waa caruur baahiyahoodu kala duwan yihiin waa qaar maxay haytay jir ahaan waxanuunsanaya maskaxaan waxanuunsanaya qaar maxay haytay lixaad ahaan waxanuunsanaya waa kala duwan yihiin runtii dhibaatada haysata gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay madasha deeqda raashinka lagu gudoonsiiyay Sheekh Cabdalle gudoomiyaha gudida Raxma al-Khayriya waxa daladiisii kamid ahaa alxamdulillah rabbil caalamiin in xaruntan waa xarun aad u ballaaran maanta aan joognaa in raashinka ku qaybeynaa waa xarun dad fara badan lagu hayo waa meelaha ugu liita markaad eegto dalkeena markaad eegto waxa weeyaan ubadkanu waxyaalo fara badan bay u baahan yihiin waayo qofka waxaan u maleynayaa dibadda jooga ayaa arkay ubadka sida loo xanaaneeyo iyo sida loo hayo wararka kale dalka gudihiisa aniga kaayna waxaa kamid ah iyadoo lagu jiro bishii barakaysaneed Ramadaan ayaa guud ahaan dadweynaha ku nool caasimadda Hargeysa ay noo sheegeen inay bishan barakaysaneed Ramadaan khayrkeeda iyo faa'iidadu ay tahay mid aad u wanaagsan dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa ayaa waxa ay sheegeen in ay bishan barakaysaneed Ramadaan ay tahay bil aad u qabow oo ay ka heleen caafimaad haddaba intaas oo dhan kadib waxa ka hadlay Sheekh Cabdikhadiir oo kamid ah culimada Soomaaliland waxaanu sheegay in bishan barakaysan Ramadaan laga helo faa'iidooyin badan oo dhinaca caafimaadka iyo khayrkaba isugu jira sheekhu arrimahaasi ka hadlaya ayaa hadaladiisa waxa kamid ahaa bisha Ramadaan waa bil Ilaahay inagu daweeyay Ilaahay inagu daweeyay subhanahu wa ta'ala waxaanu ka helay raashinkii inuu Ilaahay kala jaray si maqduur ah oo maysuura si fudud oo awoodno من طلوع الفجر الصادق الثاني
إلى غروب الشمس وإلا أنا أودي كرم ما أنا أودي كرم أنت زراشين اللي نجوتي خاصة ولي بنيك أودي كرم كي أما بوكا أما مسافرة إبقاء لقدرته وصحته أيها على استعفو فعدة من أيام أخرى ما كلا قضية هذا كم مرة ينزو أما دقاتير تقوي يا حنون كوا حنون لقى بوكسين كرم قضية فعدة منها هذا دقاتير تقوي يا أما أريد أفتح أنا حنون كنك بوكسين هنا في ذي نظامكم مركوا نظام واسعة بشرطان بركيسان والنالبي يقول تبيسي فجر وبالعافيمان بدن كي دوينيسا سامو شيغني روح دلوي دوينيسا cabdisitaar sabri ayaa magaalada burco warka nooga soo diray gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye iyo duqa degmada Burco ayaa ka qayb galay munaasabada lagu qeybinayay aalad kamid ah waxyaabaha raashinka lagu korsado isla markaana laga hortago dhuxusha laga soo shido dhirta ka baxda guud ahaan Soomaaliland ayaa maanta ka dhacday xaafadda Cali Xuseen ee magaalada Burco aaladan ayaa waxa dalka keentay shirkadda Ganal Energy oo sida laga warqabo yoolkeedu yahay in Soomaaliland shidaal ka baadho ama ay ka soo saarto dadweynihii kala duwan ayaa ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa waxa halkaasi sharaxaad kooban ka siiyay mashruucan iyo sida loo isticmaalayo sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda mashruucan fulinaysay tusaalahan oo kale dabkiiba iyo shidan dabbaskii waa ka rogay sidaasaan ayaan u dul dhigay karkii ugu horreeyay bishroogay dherigii waan ka qaaday marayaroo runtii ama shiida ayaan dabbaskii kaga masaxayaa dabbaskii markaan kaga masaxo dherigii baan qaadayaan oo laba gacmood ku haya waxaan dhex dhigayaa maradan oo marka horeba ii kala furnay ya deetana kaasaan dusha ka saaraya markaan ka saaro waxaan ku xidhayaa dulca wadarkaysan kole dulca shidikuma cusbo isticmaala hal yeer markaa dulcaasi ku jiidayna dulca markaad ku jiido ayaad si fiican u xidho hooyadu way qaadaysaa meel guriga ka mid iska dhigaysa baylahadeedii kale guriga ayay iska qabsanaysaa haddaad carruurtii xinaynaysaa haddaad dhar meedhaysaan dharkaaga iska soo meedhanaysaa haddii beriisu ahaa waxaad karinaysay saacad kadib carruurta waad uga guraysa isagoo diyaar oo dhammaystiran intaasi kadib madaxda dawladda ayaa hadalka qaadatay iyo maarayaha shirkadda Ganal Energy annaga dadka hadii mas'uulka aan kana cidii wax u qabanaysa baan soo dhaweynaa waana dadka yaga ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ka badanna shirkadda waan ka heli doonaa waa uga fadhinaa laakiin midun baa dardaaran hadii jeer waxyaabaha inagu soo gala deeqda inagu soo gala ama bilaashka inagu soo gala daryeelkooda wuu inagu yari waxaan filayaa haddii ilaahay noo aqbalo oo ay noo suuro gasho inuu shidaalkaasi soo baxo aan aad iyo aad u hanweynahay boqolkiiba 99 in aynu waxaan imika ka hadlayno iyo wax walba ka tegi doono aynu noqon doono qoladaas samada fuula haddii alla yidhaahdo yani dhaqaalahaynu kori doono ilaahayna waynu baryaynaa oo gacmahaynu kor u taagaynaa inuu noo aqbalo amiin dhaha sabra haddii ilaahay yidhaahdo marka shidaalku soo baxana waxaba meel banu iska dhigay noo shooladayn qaadanayo saana soo duceeyey in ilaahay shidaal khayr qaba dalkaynu looga soo saaro marka wax wanaagsan ma roodna iskuulo waaweyn baa la dhisi doonaa jaamacada la dhisi doonaa kuwa waxbaa ilaahay loo keeni doona waa hordhici tahay waaleykum salaam wasalaam mashruucan oo loogu talagalay xaafadaha danyarta ah ee ku dhaqan yihiin ee magaalada Tanburco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa la gaarsiiyay ilaa 700 oo qoys oo ka kooban xaafadaha Cali Xuseen, Koosar iyo Aadan Saleeban. qasdiga iyo ujeedada mashruucan loo fuliyay ayaa waxa uu hoos u dhigaya ama uu hoos u dhac ku keenaya isticmaalka dhuxusha nuxurka guud ee ku duugan aaladan maanta loo qaybiyay dadkan danyarta ah ee lagu yidhi wax ku karsada ayaa waxa uu yahay in lagu dhowrto dhuxusha guriga taala isla markaana taas bedelkeeda waxa mashruucan aanu raali gelinaynin haba yaraatee dadka ku caanbaxay ka ganacsiga dhuxusha iyo dabargoynta deegaanka Soomaaliland. cabdisataar sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco warkii
oo akhyaarta qiimaynta qadarinta iyo xishmada badan ee hawada nagala xidhay aad kala socoteen xarunta guud ee telefishinka qaranka Soomaaliland uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. daawadayaal waa naga intaasi waad ku mahadsantahay sida qiimaha iyo sharafta aad ula socotaan baahimaha kala duwan ee telefishinka qaranka Soomaaliland. warkan war la mid ah daawadayaal mar kale intaan wada ku kulmi doono waa Axmed Saaki Daar Xasan oo dhamaantimeed ku dhaafaya kulanti dambe oo xiiso leh Ramadan Kareem.